السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا ديجي مصطفى channel كان دعوانا سنة وديجي مصطفى family سلام كبعد أدبرت إني وضع السلام يا دمانتين I hope إن عافمات قبطان my family أصحابتي دمان إن عافمات قبطان فضلا عافمات هنا كتلية عذر حنبا سعودة اسكو ضينا إن always social distance سميسان أدبر إني وضع السلام يا سلام كبعد ما أنت برنامج كان يحيو برنامج هذا هو كدوية برنامج كان وحالة دحاء ما أنت إني هاي واحد feedback أو كفل علم واحد ترتي برنامج عن 2018 كدوبي waxaa jira video aan 2018 ka duubay waxaa ka soo wareegtay 2 sano ka hor waxaan ugu magac daray videogaas qaabka loo labisto barigaas waxaan ka hadlayay qaabka loo labisto wiilasha dhalinyarta ay u labistaan waxaa jirta dad badan oo ka soo falceliyay ama feedback ka soo bixiyay ama ha wanaagsanaadaan ama ha xumaadaan ama waxyaabo isku dhex jiraan marka waxaan rabaa inaan commentiyada laga soo bixiyay inaan gadaal u raaco kus waxaa dhici karta waxyaalo badan oo kaa khaldana qof kale inuu kuu sheego waxyaalo badan saxsan ah in laguu sheego marka always khaladkaagana waa la qaataa saxdaadana waa la qaataa labada waa la qaataa midna lama diido marka waxaa dhici karta waxyaalo badan oo kaa khaldan aad ogeyn waxaa dhici karta qof kale inuu og yahay marka أنا ربا إنان وقتiga ilaaliyo videogana ma raba inaan dheereeyo waxaan soo qaadanayaa 5 comment iyo 5 comment oo waxyaalaha khaladka iyo 5 comment oo waxaan soo qaadanayaa dadku sida u arkaan barnaamijkan marka barnaamijkan waxaan sameeyay waxa la dhaho part 1 part 2 weli ma sameyn waxyaalo badan awgood part 1 markaan sameynayna si waxaan u sameeyay oo degdeg ah oo aan rabay dadka inay ma hor dhici doono intaan ku sharaxaya videogan ku dhex sharxi doonaa waxaan leeyahay daawasho wacan okay videogan waxaan duubay October 14keedii 2018 waxaa daawatay 13,850 waxaa comment ka bixiyay 54 qof oo mahadsantiin aad baan inaga mahad celinayaa dhamaantiin inta comment ka bixisay inta daawatay marka waxaan guda galeynaa commentiyadaan guda galeynaa insha Allah videoga asna waa inala wadaagi doonaa hoos ayaan ku soo qori doonaa linkiga hoos ayaan soo gelin doonaa videoga waad arki doontaan okay commentiga ugu horeeya waxaan ka bilaabayaa yar la dhaho Marwan Rashid wuxuu yiri ma sha Allah I learned a lot from you wuxuu yiri ma sha Allah thank you وداي ما شاء الله صاحب حياله بدن ayaan ka bartay buu yiri marka aad baan u mahadsan tahay jiraan dad badan wax ka faa'iido iyo dad adiga wax ka faa'iido iyo dad wax kala faa'iidaan marka aad baan ugu mahad celinayaa Marwan Rashid Kennedy wuxuu yiri keep going commentiga labaad ay soo qabanaya ayaa wuxuu yahay waxa la dhahaa wiilka waxa la dhahaa muxa dhalad ogaadeen wuxuu yiri wuu qoslay KKK wuxuu yiri walaal والله 10 بدن بان لغا فائدي wuxuu yiri wallahi 10 badan ayaa laga faa'iiday wama hasanta wala macaan insha Allah waxaan diyaar u ahay in wax laga faa'iido ana wax faa'iido aad ma hasan commentiga kale ku xiga waxa waaye highway killer ma sha Allah wuu yiri waa arin aad u fiican buu dhamaan dhalinyarta ayaa u baahan wuxuu yiri ma sha Allah waa arin aad u fiican dhamaan dhalinyarta u baahan oo commentigaas kiisadhaad oo wuxuu isoo qoray خضر محمد الله دي صوب بدي صاحب حير ناصو بدي فيديوهاش صاحب ناصو بدي وداعي أبدأ مع سنة خضر إن شاء الله بارت 1 أيام سمية بارت 2 أيام صوب ربع وحالها عرفات الليلي وحير أبتي وذا فلدقن أيام نقرني لبسك نقص حوير especially حتى ديدت بدن بأشتري الحفلة بدن وحكا إيمد برعو I think برعو كله لياي خير أيام كروتشيني عرفات هذا ما حصلت هاي معنا أدب أو سلامية دمان أصحابتي يهرب برعو أدب أو سلامية كومنتي أفراد واي كيش أنا أيام جودة يربى وحير خليل بالله خليل كي وحير برو أدب أو ما حصلت هبير وتلوين أدب في عم بيري إنستغرام كاجا إيش كبير إن شاء الله إنستغرام كاجا أنت أيام خصو قرية إنستغرام كاجا إيش كبير أنا خلط كلام استعماله إنستغرام كأيام كهلا صعود دونا بيري لقنا يا بيري إلى واحد بدن أقول صعود دونا marka insha Allah khaliil aad baa u mahadsantahay saaxiib
instagramkaygana hoos baan kusoo qorayaa adigana instagramkaaga waa soo raadinaya aad baa u mahadsan tahay gabadha waxay soo qortay naga dhisbatiri wiilashaan caloosha weyn aad bay iga qoslisay aad baa u mahadsan tahay insha allah magaceeda waxaa la jawaabo aad baa u mahadsan tahay waa commentigii shanaad waaye marka shanta commenti insha allah aad baad u mahadsantihiin waxaa laga yaabaa waxyaalo badan inaad iga faa'iideen ana aan iga faa'iidi doono aad baan iga mahad celinayaa marka hadda waxaa u gudagalaynaa shanta commenti oo khaladaadka lagu saxayo haddii waxay iga khaldan yihiin okay commentiga ugu horeeya soo qaadanayna waxa waaye waxaa la dhahaa magaciisa kaldeeq magaciisa waxaa la dhahaa kaldeeq bashiir kaldeeq bashiir wuxuu yidhi kama helin buu yidhi barnaamijka mawduucu waa muhiim wuxuu yidhi kama helin barnaamijka mawduucu waa muhiim laakiin sida aad u sharaxayso oo aad u dhigdhigayso ayaa liidatuu dhahay waa runtiis ma diidani kaldeeq aad u mahadsan tahay waxaa dhici kartaa qof markuu maanta kusoo hor istaago waxyaalo u sharaxayo inay aad kuu qancin ismaada garan aad waxba aad ka fahmin iyo qof waxaa jira markuu wax sharaxayo aad uga fahmaysid marka dadku isku mid maahan marka insha allah waan isku dayayaa mar barnaamij part 2 ayaan soo wadaa waan isku dayayaa inaan aad u sharaxo waxyaalo badan aad iga faa'iidid ana aan kaa faa'iido marka kaas uu ahaa okay commentiga labaad ayaan gelaynaa cabdimalik cabdi kamil kabayara miya walaalihiin anaa shakiibin wuxuu yidhi bro wallaahi waa iska kaa daawaday maahane waxba kaama faa'iidin buu yidhi barnaamijku aad buu u wanaagsan yahay laakiin sharaxaadada ayaa aad u liidata waayo labiska markuu ku cajabo geliyo dha sababta ayaa la sheegaa sidaa dadku u fahmaan wuxuu yidhi barnaamijku waa aad buu u fiican yahay laakiin sharaxaadada ayaa liidata maadaama labisku ku cajabiyo waa la sharaxaa commentigii ka horeeyay sidoo kale ayuu yidhi barnaamijku waa wanaagsan yahay laakiin sharaxaadada ayaa aad u liidata marka sharaxaada ayaa aad u liidata insha allah sharaxaadaas waan hagaajin yar la Axmed Costa wuxuu yidhi walaal adaaba labisku ka halaysan yahay see camal buu yidhi jaakeetka iga cun jaakeetka ku dhigay fiidiyoga uu yara madoobaa shacabtii aan ku qabay marka jaakeetka malaha lagama helin marka jaakeetka waa kaa cunaya balan waayo King Song wuxuu yidhi adigaaba labisku kaa khaldan yahay saaxiibkay mise waxaa naga dhaadhicin wuxuu yidhi adigaa labisku kaa khaldan yahay saaxiibkay mise waxaa naga dhaadhicinaysaa jaakeetka iyo shaatiga isku wadatid waddankaa joogta ayaa looga xirtaa waxaan qabay jaakeet madow iyo shaati cad waxaa laga yaabaa wadamada qaarkood in laga xirto marka laga yaabaa waddankaa joogana jaakeet iyo shaati la isku xirto laakiin jaakeetka weyna dhibaa u jeedaa waa jaakeetka aniga cunaa jaakeetka dibdib ma gasho hal waxaan rabaa tusaale inaan kusoo qaato yar halkaan loo sahal cabdiladiif wuxuu soo qoray warniyahow nacas ayaa tahay bal fiiri waxa aad abuurtay ma jiraan adiga dad kula baad ku wareegayane nacas wuxuu yidhi nacas baa tahay marka waxaa kaloo example wuxuu yidhi nacas baa tahay marka example waxaan usoo qaadanaya marka youtuber tahay ama social media ku dhex jirtid qof baa ku amaanaya qof baa ku caayaya qof baa ku taageeraya qof baa kaasoo horjeedsanaya marka weliga always isku day dadka kurti in isku kaa mid ahaadaan kan ku caaya soo dhowdhe kan kaa taga soo dhowdhe kan ku jecel soo dhowdhe marka kulli isku mid noqo weligaa falcelin ha sameyn yar la dhaho Man United yar miyaa gabar miyaa wiil miyaa nin miyaa oday miyaa islaan miyaa garanaya wallahi wuxuu yahay laakiin waxaa la dhahaa Man United wuxuu dhahay waxba maadan ii faa'iideen barnaamijka dhan buu daawaday wuxuu yidhi waxba imaadan faa'iideen way jirtaa dad waxaa jira wax daawado laakiin xataa wax yar aan ka faa'iidin marka qofkaas kale xataa waan soo dhaweynaya aad baan mahadsantahay saaxiib waqtiga aad gelisay waxaa laga yaabaa inaan waqtigaaga kaa dhumiyey iga raalahow aad waxba iga faa'iidin laakiin insha allah next time inaa wax iga faa'iidi doontid aniga horta videoga waxaan sameeyey 2018kii maadaama 2018ka aan sameeyey waxaan ku arkay shan beri ka hor ayaan daawaday 2018 waxaa kasoo wareegtay 2 sano shan beri ka hor ayaan daawaday kommentiyaasha akhriyay waxyaalo badan akhriyay feedback badan baa iiga soo laabtay dad badan horta hore waa ila soo xariireen by phone
oo Ben Insigma dad badan baa telefoon ugala soo xiriiray barnaamijka inaan soo kordhiyo soo badiyo oo aan waxyaalo badan aan ka bedelo sida kaamirada sida styleka sida sida qaabka aan u hadlayo qaabka wax u sharaxayo waxyaalo badan inaan ka bedelo barnaamijku waa fiican yahay baa lagu yiri laakiin waxyaalo badan waa inaad ka bedeshaa marka insha allah barnaamijka waxaan ku arkay waxyaalo badan inay ka khaldanaayeen runta fiican moogta anigu badanaa runta kuma lexleexdo barnaamijka waxyaalo badan aan ka khaldanaa insha allah marka marka waan isku dayayaa insha allah part 2 ayaan soo wadaa part 2 inay noqoto mid inay qancisa oo aad u qurux badan oo well professional laga soo shaqeeyay waagaas keliga ayaan ahaa laakiin hadda waxaa jira dad badan oo ila shaqeeyo oo markay noqoto wax duubitaan aan rabo inaan duubo dad badan oo ila shaqeynaya oo ila duubaya ayaa jira marka insha allah khaladkaagana mar walba waa la qaataa hadhihin mar walba waa saxsanay anti amiir hadhihin khaladkaaga mar walba qaado weligiin wax lagu soo qoro ha ka xanaaqin hana ka xumaan waa dhiirigelin taas oo la socdo to be honest message-yada dhan la isoo qoray comment-yada dhan la isoo qoray wallahi hal wax oo niyadeeda bedelay male kulli waxay ii noqotay dhiirigelin wixii iga khaldanaa waa saxaya wixii ii saxsanaa waa isii saxsanaanayaan marka wax walba wax ii kordhay marka message-yada la isoo qoray dhan waa dhiirigelin maahan wax iga khaldan oo aan ka xumaanayo maahan waa dhiirigelin aad baan idin salaamayaa waa idin wada jeclahay dhammaantiin caafimaadkeena ka taxadara mar walba social distance aad baan